بسم الله الرحمن الرحيم وعيد السلام يا أرضي form 3 muuqaalkan waxaan idinku soo duubay inaan idin tusiyo ama aynu tijaabo ku sameyno cloud collaboration toolska wax ka mid a si aynu ku ballanayba cloud collaboration toolska waa maxay waa apps ama waa softwares lagu wada shaqeeyo ama dadka u ogolaanaya inay ku wada shaqeeyaan appskaas waxay u qaybsanaayeen kuwa lagu qaban karo online conferences ama video and voice conferences kuwa lagu qaban karo waxbarashooyin sida zoom iyo wixii lamid ah waxaa kamid ah kuwa lagu qaban kuwa wax lagu wada qori karo kuwa sharinka loo adeegsado kuwaasaa kamid ahaa maanta marka waxaan rabaa inaad tuso mid kamid ah kuwa wax lagu wada qoro tusaale usoo qaadano tusaale ahaan waxaa la adeegsadaa marka wax la wada qorayo si online ah Google Docs ama Google Documents marka Google Documents qaabka loo isticmaalo iyo qaabka linkigiisa loo diro ama dadka waxa la yiraahdo co-authorska loogu diro linkiga ayaa rabaa inaad tuso marka waad Play Store-kaaga soo gelaysaa waxaad la soo degaysaa marka Google Docs ama Google Documents Google Docs baad qoraysaa markaad qortid waa kan waad ku dhufanaysaa waa kan hoose waa kan aniga hadda wii degsan yahay oo bimacnaha adigu install baad oranaysaa waay sidaan marka usoo furmo waxaan waa dokumentiyo hore oo igu jiray plus-kan ayaad ku dhufanaysaa kan plus ku qoran yahay ayaad ku dhufanaysaa plus markaad ku dhufatid laba wax buu kusoo saarayaa inaad dooratid template document horey u diyaarsan oo marka aad wax ka bedeshid iyo inaad document cusub abuurtid document cusub baan anigu abuuranaya new document baan leeyahay waa kan marka documentigayga halkan ka bilaabmaya halkan marka waxaan sameynayaa buuggayga ciwaankiisa ama wixii aan wada qoranay qofka ayaan ciwaankiisa qoraya tusaale ahaan waxaan leeyahay assignments baan qoraya assignment ama tusaale ahaan oo kale waxaana loo diray inaan soo qoro aniga iyo arday kale maqaal ka hadlaya geela waxaan leeyahay marka geela ama faa'iidada geela aan dhaho maqaal ka hadlaya faa'iidada geela maqaalkii waa kaas marka ciwaankiisa intaasuu noqonayaa ciwaanka waan hagaajinayaa saasaan u yara taabanaya markaan yara hayo highlight saar buu dhahayaa marka highlight kan wada saarayaa kabacdi halkan aadaa yarta ay ku qoran tahay halkaa ay ku qoran tahay format aadaas halkaas sare ayaan ku dhufanaya markaan ku dhufto waa kuwan halkan tusaale fartoo kale halkan ka bedelaya fartoo kale halkan ka bedelaya kor hoos baan wada kor baan wadaya kanoo kale dooranaya ciwaanka sidoo kale bold baan ka dhigayaa farta haddaan rabo inaan kordhiyo plus-kan aan ku dhufanaya waa kan hoosta haddaan rabo inaan ka xariiqo halkan u-dan hoosta ka xariiqa baan ku dhufanaya waaye intaa markaan dhameeyo plus-kan yar baan iska taabanaya waa iska dejinaya waa kaa hadda ciwaanka waa ii qoran yahay faa'iidada geela ayaynu markaa qoranaa marka anigu intayda marka aan qoro tusaale ahaan oo kale kow waan leeyahay tusaale ahaan kale qodobka koowaad anaa qoraya faa'iidada geela ku saabsan qodobka koowaad ee faa'iidada geela ku saabsan aniga ayaa qoraya waay tusaale waxaan leeyahay geela waxa aynu ka helnaa cad iyo caano faa'iidada koowaad aniga ayaa qoray marka waxaan rabaa asxaabteeda kale ay ila qorayso si ay usoo qoraan faa'iidooyinkaas in aan la wadaago faylkayga inaan la wadaago waxaan samaynayaa horta marka koowaad waxaan ku dhufanayaa tigta yarta ah kabacdi saddexdan dhibcood ee halkan ku yaala more option ay ku qoran tahay baan ku dhufanayaa then laba qodob baa laga rabaa inta aan marka koowaad intaan linkiga qaadin oo aanan linkiga u dirin asxaabteyda ila qorsa waxaan u baahanahay in aan authorizationka aan wax ka bedelo awoodsiin inaan sameeyo oo dadka ila qoraya awoodooda aan cayimo tusaale ma editors bay noqonayaan ma viewers bay noqonayaan mise commentaries bay noqonayaan marka qofku markuu wax kula qorayo waa inaad awood buuxda siisaa oo aad ka dhigtaa editor si uu faylkaaga waxna ugu qori karo waxna uga tirtiri karo marka waxaan imaanayaa halkan hoosaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay share and export ayaa ku dhufanayaa
waa shan aan export marka aan ku dhufto qoraalladan ay soo baxay halka ay ku qoran tahay marka manage access inta aanan linkiga qaadin oo aanan dirin manage access baan geliyay manage access macnaheedu waxa weeye dadka soo gelaya faylkaagan maamul waayo waan ku dhufanayaa manage access then halkan hoose ay ku qoran tahay general access ayaan tegaya general accesska hadda waxaa ku qoran only people added can be open with a link dadka aad u ogolaatid ama aad u fasaxdid keliya ayaa soo geli kara linkigan halkan change ay ku qoran tahay baan ku dhufanayaa falaadhan aan kusii dhufanayaa hadda waxaan leeyahay everyone with a link qof kasta oo linkigaasi gaadho ha soo galo linkayga waxna ha ku qoro faylkayga waayo everyone with a link baan ku dhufanayaa xoogaa buu yara wareegaya xoogaa markuu yara wareego hadda qof kasta oo linkiga gaadha wuu soo geli karaa faylkayga markuu faylkayga soo galo maxay noqonaysaa awoodiisu authorizationkiisu muxuu noqonayaa hadda viewer baa dooran waan ka tirtirayaa viewer keliya waa akhriste waad akhrisan kartaa faylkayga laakiin waxba kuma dari kartid aniguna waxaan doonayaa saaxiibaday inay ila qoraan faylka oo faa'iidada geela ila qoraan marka viewer haddaan isagoo ah aan linkiga u diro awoodoodu waxay noqonaysaa akhris keliya waxaan ka dhigayaa marka editor baan ka dhigaya qof kasta oo markaa linkiga gaadhay oo ka mid ah dadkii wixii la qorayay waa editor buu noqonaya faylkayga wuu soo gelayaa waxbuu waxa la yiraahdo ka bedeli karaa waa kaas waayahay waan ka noqonayaa back baan leeyahay haddana back baan sii leeyahay mar labaad waxaan ku dhufanayaa saddexdii dhibcood haddana mar labaad waxaan ku dhufanayaa share and export then hadda waxaan qaadayaa linkigii baan copy link baan taabanayaa then waan baxayaa markaa waxaan tegayaa waxa la yidhaahdo whatsappkayga markaasaan waxaan sameynayaa ciddaan rabo ayaan u diraya qofka aan rabaan u diraya marka qofkaa rabtid dee adaa garanaya tusaalahan kale haddaan waxaan u dirayaa saaxiibkay baan rabaa inuu wax ila qoro aadam baan u diraya aadam aan qoro waayahay waan ku dhufanayaa sendi baan leeyahay bes sendi markaan dhaho hadhuto linkigan unbuu ku dhufanayaa linkigan markuu saa ugu dhufto waxa la yiraahdo wuxuu dhahayaa gmailkee ku gelaysaa tusaalaan kasoo qaad anigu waxaan ku gelayaa kaa cawil ay ku qoran tahay dabeetana okay baan leeyahay faylkii baa laga furaya saasoo kale ugu soo baxaya markuu saa markaa kuugu soo baxo hadhuto linkiga aad ku dhufatid waxaad ku dhufanaysaa qalinkan yarkaa baad ku dhufanaysaa qalinkan markaad ku dhufatid waa laguu furayaa faylkaagii haye faa'iidada labaad baad qoraysaa saas u qoraysaa waayo intaas waa qaabka loo waxa la yiraahdo loogu wada shaqeeyo appka la yiraahdo Google Docs oo lagu talagalay to write documents simultaneously in si wada jira wax loogu wada qoro waayahay intaasaan ku joojinayaa insha Allah waxaan soo raacin doonaa sida loo isticmaalo cloud storage ama sida online wax loogu kaydsado iyadoo la isticmaalayo Google Drive ama OneDrive ama Dropbox kaasna insha Allah waa soo dhigay waa baasantiin